أولاً هرتا إلهي ما هذا سكله waxaan kala u mahad celinayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed meel walba u taagan difaaca dalka iyo soo tabinta arrimaha bulshada meel kasta oo ay joogaanba waa u mahad celinayaa aad baan wali ugu sii mahad celinayaa beesha Cali Xaashi oo dhigiisa u shubay shacabka Soomaaliyeed oo teeri waagii dagaalkii khawaarijtu u bilowday dhex taagnaa oo ka dhex muuqday ciidanka qaranka meel kasta ay joogaanba iyo deegaanka ciidamada deegaankaba waxaan kala u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay dagaalkan kana dhabeeyay oo sida ay tahay uga run sheegay dagaalkan khawaarijta ah nimankan khawaarijta dagaalkooda in la soo afjaro kuna tali jiro aan rajaynayo in maaragtay dabaadiga u dambeeyana uu ka qaaya gaaro aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kala u mahad celinayaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee meel walba u taagan dhiigooda iyo naftooda u huray shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada waxaan leeyahay ha ka daalinina ha ka caajisinina ummadda Soomaaliyeed in ay maaragtay horumar gaaraan in ay ka baxaan dhibaatadan iyaga ayaa u horseedi kara waxaan leeyahay ku dhiirada ku dadaala ha ka caajisinina dawladdu sidee uga faa'iideysan kartaa khilaaf argagixisada su'aasha dawladdu sidee bay uga faa'iideysan kartaa khilaafkan soo kala dhaxgalay argagixisada wararka hadda helina waxa kamid in ajaanib iyo Soomaali oo kala baxeen kuwii ajaanibta la xirxiray wax la dilay dhibaato badan ay meeshaas ka jirtay ka dhaxdhacday horta aad baan ugu faraxsanahay oo dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed ay u geysteen in ayaga dhexdooda ay ka heleen waxaan leeyahay dawladdu fursad badan bay meeshaas ka heshay fursadda ay ka heshay waxay tahay in ururkii khawaarijta ay kala jabeen in xogaa cadaadiskii dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed ku heeyeen uu yaraan doono marka fursadda ugu jirta waxa ay tahay iyo jaariska u furan dawladda in horta ay soo laba jibaaraan oo soo laba celiyaan baaqoodii qofkii is soo dhiiba in la cafin doono dawladduna ay gacan u fidiso soo dhaweynta iyo dadka is soo dhiibaya walow anigu hadda fikriyan aan qabo ku ajaanibta dalkeena ku soo duulay qaa'iniinta kuwaas wax cafisay inaysan lahayn in ay sharciga wixii ku helaan leeyihiin sharciga la marsiyo nimanka horjoogayaasha oo waaweynka hadii la yiraahdo hal soo dhaweeyo oo xilal hal siiyo oo maaragtay hal waxayo waxay noqonaysaa inay wax kaba jiraan noqonayso baabii ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada har iyo habeen qorraxda u taagan laakiin fursad baa meeshaas kale ku jirto in maaragtay si walba oo dawladda ugu fududeyn kara nimankaas kala jabkooda iyo kala aamin baxooda in ay dawladdu ka shaqeyso in kuwa ajaanibta aan la soo dhaweyn oo kuwaas maaragtay maxkamad la saaro haddii ay dhaqaale u adeegsan karto oo ay dhaqaale ku kala furfuri karto iyo haddii maaragtay ay siyaabo kale yeeli karto dawladdu maaragtay in arrintaas ka faa'iideysato fursad badan bay ugu jirta nimankan khawaarijta sida aad dareemaysaanba diin horta meesha ma aysan imaanin dadka waxay ku xukumayaan diin ma ahan waxay ku xukumayaan wadana ay u gaar ah ay ka dhax arkeen waxaana hogaaminaya niman dambiilayaal oo dawladahoodii iyo deegaankoodii dadkoodii dambi ka soo galay ee Soomaaliya ku dhuumanaya oo ka dhigtay hul ay ku dhuntaan Soomaaliya nimankaas ayaka horta sida hore baa u sheegay dawladdu gacan bir ay ku qabanaysaa shabaabna dhixdiisa waxaan u maleynayaa markaan ayaga laftigooda waji iyo sumcad uma taalo laakiin kuwa dalka u dhashay ayaa waxa la rabaa sidii ay u kala dhow yihiin dawladda inay soo kala dhaweyso oo ay maaragtay u fidiso si dawladda ay gacan saar ula yeelato xogta shabaab oo ay u hesho oo ay u sahlanaato in al-shabaab kuwooda hoose ay soo dhiibaan si u sahlanaato dawladdu inay maaragtay gacan hoose ku yeelato intaas ayaa faa'iidaha ugu jirta ay soo dhaweyso waxaan dhihi karaa khilaafka soo kala dhaxgalay kooxaha nabadiidka ee ku dagaalamaya Soomaaliya ka dagaalamaya dawladdu waxay uga faa'iideysan kartaa aan qabaa laba option ama laba waji wajiga koowaad waxaan leeyahay dawladdu haddii dagaalka lagu jabbaarto oo wajiga labaad ay ku baaqday dagaalka ay xoojiso chance ma u heli karaan nimanka nabadiidka inay khilaafkooda xalistaan u heli karaan waxay danta ku qasbaysaa inay soo dhiibaan dadka ajaanibta ay kala cararaan bay danta ku qasbaysaa ama la laayo dawladda waxaan u baaqaynaa
inay dagaalka la wajibaarto oo dagaalka aan nafis la siin niman si maaragtay ay waxa weeye lagu cariiriyo maaragtay dagaalka lagu xoojiyo oo la saaro talabaad waxaan dhihi karaa looga faa'iideysan karo waxay tahay in walaalaheena Soomaalida oo shabaabka nooga jira in afis loo fidiyo oo maaragtay in afis yihiin loo sheego si maaragtay uga faa'iideystaan sababtoo ah waxa weeye dad badan waxa la arkay soo dhiibay marka afiska loo fidiyay oo ka faa'iideystay waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud Soomaalida afis waxa weeye intooda suurtagal ay tahay afis u fidiyay si maaragtay dhibaatada ay ku jiraan iyo dhibkan iyo maaragtay goodkan ay ku jiraan uga soo baxaan ogana faa'iideystaan afiska dawladdu sheegtay nimanka nabadiidkana oo ajaanibtana waxa leenahay dagaalka lagu sii wado si dalkan uga baxaan waan rajaynayaa in dawladdu ay ka faa'iideysan doonto anagu baaqana waxaan diray waxay tahay in dagaalka dawladdu ay laba laabto wala waan ognahay gobolada qaar sida galmudug oo kale in cariiri ay ku yihiin hadda ay maaragtay dib ku qabaan inta harta oo hada laba iyo saddex soo dhiibay maalin kasta hadii ay dawladuna dagaalka si la wajibaartana waxa leenahay dhamaantood way soo dhiibayaan marka aniga baaqiga ugu muhiimsan intaas waa maan raxiim anigoo ah nuur jaamac maxamed waxaan meeshan ka cadaynayaa aragtida dawladda markii la yiri shabaab ayaa laba isku qabtay dawladuna ay go'aan ka qaadatay in laga cirib gooyo ummadda dhexdeeda waxaan soo dhaweynayaa go'aanka dawladda waxaan yaani ummadda ku boorinayaa in si degdeg ah ummadda dhexdeeda iyo waxa weeye dalka iyo dadkaba looga qabto al-shabaab lagana cirib gooyo yaan soo dhaweynayaa intii qaadatana waa ku mahadsan tahay inta diidanina waxaan leeyahay aragtidaasi waa mid ummadda iyo dadka anfacaysa ee soo dhaweyso intaasaan yani waxa weeye aniguna ku boorinaya ku soo dhaweynaya